الله وبركاته نبدا ودلحانتين بكسو دوادا warkii telefishinka madaxa banaan ee Bulsho TV hadahan oo kale idin ka yimaada xaruntiisa magaalada Hargeysa warka caawa waxa idin la socotiin saanigoo hooda jirda Cabdi qodobada warkaan idin ku haynana waxa kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ajandahoodii kala fadhigay 17aad u furmay iyagoo xildhibaanadaasina sheegay in lagu soo daro ajandahaasi xaaladda siyaasadda ee uu dalku ku sugan yahay maanta madaxweynaha Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Siilici ayaa qasriga madaxtooyada kula kulmay hay'ad ka socota Al Khayr Furniture oo fadhigeedu yahay dalka UK xisbiga mucaaradka udub ayaa sheegay in shirka ka dhacaya dalka London ee laga hadlayo arrimaha Soomaaliya uu xeer uga yaalo dalka Soomaaliland madaxweynaha dalka Soomaaliya Sheekh Shariif iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa maanta socdaal ku tagay dalka Itoobiya shirkadda diyaaradaha ee Spain ayaa joojisay duulimaadadii ay u kala gooshi jirtay caalamka dawladda kuwaas waa qaar kamid ah qodobadan warkeedii ku haynay miki haatan waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa gudagalay ajandahoodii kala fadhigay 17aad iyo xildhibaanadaasi oo sheegay in ajandahaasi lagu soo daro xaaladda dalku ku sugan yahay faafaynta warkaasi waxa inoo hayay Cabdiraxmaan Isbatoore xildhibaanada golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta gudagalay kal fadhigii 17aad ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland fadhigana maanta uu shir gudoomiyaha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Ciro iyo waxa ka soo xaadiray badiba xildhibaanada golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horeyn gudoomiyaha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro oo ka hadlay fadhigaasi ayaa sheegay in la gudagalay ajandaha kal fadhigii 17aad ee golaha wakiilada Soomaaliland lagana doodi doono ajandayaasha kala duwan ee ku qoran ajandaha guud ana kala oo hoosta ka xariiqay in wixii kale ay xildhibaanadu ku daraan lagu dari doono xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo ay ka mid yihiin xildhibaan Axmed Kichande Aadan Xaaji Diiriye Sanqoole ugu horeyn halkaasi ka hadlaya tilmaamay in loo baahan yahay in la dargaliyo hawlaha kala duwan ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in lagu soo daro kala fadhigan siyaasadda arrimaha dibadda iyo siyaasadda arrimaha gudaha waxa kale ay tilmaamay in dalku uu ku sugan yahay xaalad ka duwantii hore loona baahan yahay in arintaasina laga wada hadlo xildhibaanada kale ee doodaasi ka qayb qaatay oo ay ka mid yihiin Salebaan Cawd Cali Bukhari Ibrahim Mahdi Buuba iyo walibana Cali Xasan Maxamed Cali Mareexan oo ka hadlay iyaguna halkaasi ayaa waxa ay sheegeen in fadhigan lagu soo daro qodobo kale waxaana hoosta ay ka xariiqeen in hawlaha goluhu loo baahan yahay in la dardargeliyo oo dadka ay soo doortay xildhibaanaduna loo qabto waxay doonayaan ana sheegay in baahiyo kala duwan ay bulshada haysato kuwaasina loo baahan yahay in laga hadlo xildhibaanada kale iyaguna halkaasi ka mid hadlay waxa ka mid ah xildhibaan Saciid Cilmi Rooble Xasan Cawaale Caynaan iyo xildhibaano kale guud ahaan waxay hoosta ka xariiqeen in fadhigan qodobada ku jira ay ka mid tahay ansixinta miisaaniyadda qaranka iyo qodobada kale ee aan wali la horkeenin dib loo dhigto oo qodobada xasaas la soo horeysiyo xildhibaanada madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Siilici ayaa maanta qasriga madaxtooyada kula kulmay hay'adda Al Khayr Furniture oo deegaankeeda ama saldhigeedu yahay dalka UK faafaynta warkaasi waxa inoo haya Maxamuud Askar madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Siilici ayaa maanta xafiiskiisa qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafdi ballaaran oo ka socda hay'adda samafalka Al Khayr Foundation oo fadhigeedu yahay wadanka UK wafdigan uu hogaaminayo gudoomiyaha hay'adda Al Khayr Imaam Qaasim ayaa waxa uu madaxweyne ku-xigeenka faahfaahin ka siiyay ujeedada socdaalka oo ay ku sheegeen inay la xiriirto dabagalka hawlaha samafal oo ay ugu horeyso biyo soo saaridda deegaanada Soomaaliland iyadoo ay hadda gacanta ku hayaan qodid ceelal dhaadheer riigag dhammaan iyo biyo xidheeno lagu sameeyo dalka gudihiisa waxaana faahfaahin dheeraad ah halka ka siiyay madaxweyne ku-xigeenka u qaabilsanaha bariga Afrika ee hay'adda Al Khayr Foundation Axmed Maxamed Ismaaciil oo madaxweyne ku-xigeenka uga waramay dadaalka ay hay'addu ugu jirto baadigoobka dhinacyada biyaha u qaabilsanaha bariga Afrika ee hay'adda Al Khayr Foundation oo ka xog waramay hawlaha kale ay hay'addu wadanka ka qabanayso waxa uu xusay inay dadaal ugu jiraan sidii kor loogu qaadi lahaa tayeynta dhinacyada waxbarashada waxaanu tilmaamay in khabiiro u
dhashay waddanka UK ay iman doonaan dalka si ay tababaro u siiyaan macallimiinta dugsiyada dalka arrintaas oo ay ka wada shaqayn doonaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa wafdigan uga mahad celiyay hawlaha samafalka ee dhinacyada biyaha oo xusay inay tahay baahida ugu weyn ee taalla waddanka waxaanu madaxweyne ku-xigeenku ugu ballan qaaday xubnaha wafdigan hay'adda inay xukuumad ahaan soo dhaweynayaan isla markaana ay dhinacooda gacan buuxda ka siin doonaan hawlaha samafalka ee ay wadaan waxaanu ku booriyay mas'uuliyiinta hay'adda samafalka ee Al Khair Foundation inay si laban laabad dadaalka ay ugu jiraan horumarinta dhinacyada biyaha iyo waxbarashada madaxweyne ku-xigeenku waxa uu kulankaas ku wehelinayay wasiirka diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed iyo afhayeenka xisbiga kulmiye Maxamed kulan laga hadlayay dardargelinta imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ayaa maanta lagu qabtay magaalada Boorame faafahinta warkaasi waxa Boorame nooga soo diray wariyahayaga Cabdi Fataax Axmed kulankan waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka Somaliland waxaana ka qayb qaadanaya gudoonka waxbarashada ee gobolka Awdal iyo maamulayaasha dugsiyada sare ee gobolkan iyadoo kulankan lagu falanqeynayo sidii loo sixi lahaa qaladaadkii hore ugu dhacay dugsiyada sare ee Somaliland iyo dardargelinta howlaha imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare waxaana aad loogu dheeraaday in ardayda fasalada 8aad ka soo baxaya la siin doono shahaadooyin lagu cadeynayo inuu si sax ah ardaygaasi u soo dhameystay waxbarashada fasalka 8aad si loola dagaalamo ardayda la boodsiinayo taasoo qalqal gelinaysa aqoontii iyo garashadii ardayda madashan waxaa ugu horeen ka hadlay gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka Somaliland mudane Daawud Axmed wuxuuna ka waramay habka imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare loo saxayo wuxuuna sheegay in la bedelay habkaasi lagana dhigayo hab casri ah macalinku saxayeen bisana ka soo qad kalaastan laakiin markii dambe waxa loo bedelay hadana in kuwa saxan macalinku oo la wareejiyo marka waxa weeye guriga waxa soo maray waa su'aal waxa saxaysa macalinku saxa waa su'aal marka waxa weeye aan maxaa ka daba fadhiya moderator la yiraahdo moderator kan maxaa ka sii dambeeya check gudoomiyaha waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolkan Awdal Professor Axmed Cigar Iraash oo isna madashan ka hadlay ayaa waxa uu hadallo dardaaran ah u jeediyay gudoonka waxbarashada ee gobolkan iyo maamulayaasha dugsiyada sare ee magaalada Boorama ardaydii eerir ka soo baxday sanadkan oo wasaaraddu go'aamisay inay shahaado siiso ay ka qalinjabin dugsiga dhexe liisaska eerir ka soo baxay oo ilaa maamulo quriyaan isoo dhigay liiskaas lama idinku oogay dacwad laakiin waxa weeye wixii jiray oo baran la heshay afka maamulayaasha dugsiyada sare ee kulankan ka qayb galaya waxaa ku hadlay maamulaha dugsiga sare ee Al-Aqsa ee magaalada Boorama mudane Axmed Cabdilaahi Talan wuxuuna sheegay inay soo dhaweynayaan hadaladan dardaaranka ee gudoomiyaasha xafiiska imtixaanaadka iyo gudoonka waxbarashada ee gobolkan Cabdi Fataax Axmed Bulsha TV magaalada Boorama biga mucaaridka udub oo sheegay in shirka arrimaha Soomaaliya laga hadlayo oo ay ka dhacayaan London uu xeer uga yaalo dalka Somaliland faafahinta warkaasi waxa inoo haya Ciid Maxamed Askar hogaanka sare xisbiga mucaaradka ee udub ayaa markii ugu horeysay ka hadlay aragtideeda ku wajahan shir dhawaan ka furmaya magaalada London ee cariga Ingiriiska kaasoo laga hadlayo arrimaha Soomaaliya shirkan ay hore mas'uuliyiinta wadanka Ingiriisku u shaaciyeen inay ku marti qaadeen Somaliland kusimaa xogaya xisbiga udub Abdi Xaliim Maxamed Muuse oo telefishinka madaxa banaan ee bulshada wax ka weydiiyay aragtidooda xisbi ahaan ku wajahan shirkaas ayaa sheegay in guud ahaan shirarka laga hadlayo arrimaha Soomaalida ay Somaliland hore xeer uga dhigatay waxa kale oo xogayuhu sheegay in hore mas'uuliyiin iyo dad magac ku leh Somaliland ay hore xabsi ugu muteen shirar ay ka qayb galeen kuwaas oo laga hadlayay arrimaha Soomaaliya xogayaha oo ka hadlaya arrimahaasna waxa uu yiri attendees isagoo 9 pages maanta kale inaan kasoo saaro oo la soo diray si wanaagsan oo akhriin oo doonay laakiin waxa sideedaba nabdiyan dee wax ka yaala xeerar labada gole soo maray oo la ansixiyay labada golaba ay soo ansixiyeen solution adag baa jira oo haddii mid kale yahay meelaha Soomaaliya lagu heshiinayo inaga mamnuucayeen ka qayb galin inta lagu xakameynayay bay ahayd inaan qofku meesha doona iska tagin muqdisho iska tagin Soomaaliya iska tagin shir walba iska fadhiisan ay lagu xakameynay in badan lagu xidhay salaadii lagu xidhay waa dogeydeen waxa lagu xidhay dad badan oo hal door lagu xidhay siyaasiyiin waxa weeye dee wuxuu ahaa xakame ay xeerkaasina ahaa resolution bina
labada xeerna soo maray bagi anagu halkii aanu ka taagnay inuu baan wali ka taagin gudida tuulooyinka hoos yimaada magaalada Boorama ayaa kulan lagu qabtay baahiyooyinkii tuulooyinkaasi hore u soo gudbiyeen waxa lagu qabtay in magaalada Boorama waa kan mar kale iyo Cabdi Fataax Axmed magaalada Boorama waxaa maanta lagu qabtay kulan loogu doodayo sidii baahiyaha waxqabad ee tuulooyinka hoos yimaada degmadan Boorama loogu soo saari lahaa kuwa mudnaanta koowaad la siinayo ee adeegyada horumarineed ee bulshada loo qabanayo kulankan waxaa ka qayb galaya gudida 17 tuulo oo degmadan Boorama hoos yimaada wuxuuna kulankan socon doonaa muddo 3 maalmood ah waxaana lagu kala saxiixan doonaa waxqabadyada caafimaadka waxbarashada biyaha iyo wixii la halmaala ee nolosha dadka deegaanka kaasi ku dhaqan madashan waxa ugu horeen ka hadlay injineerka dawladda hoose ee magaaladan Boorama Maxamed Xasan Cumar Gendo wuxuuna ka warbixiyay baahiyaha koowaad ee waxqabadka loo soo saaro baahiyihii aad soo gudbiseen baahiyahaas oo laga soo gudbiyay tuulooyinka iyo magaalada xaafadayga ay u qaybsan tahay waxaanu ku ansixinaynaa halkan muddada aynu wada joogno baahiyihii aad idinka yimid ee hoosta ka yimid waa tii aynu hore iskula garanay wuxuu hadduu dusha ka yimaado dee sida uu hoos ku gaadhaa way adag tahay laakiin waxa la ogaaday in waxa hoosta ka yimaadaa uu si fudud dusha ugu gudbi karo waxa hoosta ka yimaadaana uu wada gaari karo bulshada xogayaha dawladda hoose ee magaaladan Boorama mudane Maxamed Cabdi Xaashi Xamari oo isna hadalada madashan ka jeediyay ayaa carabka waxa uu ku adkeeyay in hawshani ay ka mid tahay mashaariicda isku dhafka ah ee waxqabadkaasi loo fulinayo wuxuuna yiri haddii baahidu ay ka timaado dad kale oo deegaamada deganeyn waxa laga yaabaa baahi aan muhiim ahayn in mashaariicda lagu diyaariyo kadibna ay dhaqaalihii la gelinaya khasaarada laakiin maanta waxaan hubaa waxa idinka yimid inay yihiin wax dhaba dadka ay hor fadhiyeen maanta odayaal ee meesha joogan inay yihiin odayaashii gudiyada deegaamada oo yihiin odayaashii dhabteed deegaamada ka soo jeeday haday odayaal yihiin haday cuqal yihiin haday marka salaadiin yihiin waxaan qabanaynaana uu ku salaysnaan doono waxa maanta idinku aad isla garataan ee la yiraahdo wartee daran markii deegaan walba uu baahidiisii keeno haddana waxa priority-ga loo kala siin doonaa budnaanta siday u kala daran yihiin ee maanta baahida loo qabo isku soo duubo kulankani waxa uu ku soo beegmayaa xilli baahiyo kala duwan oo u baahan in la kala horeysiyo ay ku soo badanayaan deegaanada hoos yimaada degmadan Boorama iyadoo maamulka dawladda hoose ee magaaladan Boorama ay wadaan dadaalo iyo howlkarnimo ku aadan sidii loo horumarin lahaa deegaano badan oo degmadan Boorama hoos yimaada Cabdi Fataax Axmed Bulsha TV magaalada Boorama dalkaasi Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa maanta socdaal ku tagay dalka Itoobiya faafaynta warkaasi waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Saciid Doore madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaare Cabdiwali Maxamed Cali ayaa maanta safar kala duwan ugu ambabaxay dalka Itoobiya iyo Talyaaniga madaxweynaha ayaa u qayb gali doona magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya shirar ay ku kala yeelan doonaan urur goboleedka IGAD iyo midowga Afrika halka uu ra'iisul wasaaruhu martiqaad ka helay madaxda dalka Talyaaniga waxaanu saxaafadda uga warbixiyay safarkiisa iyo kulamada u qorsheysan إن شاء الله لك ولك دونا وزارة وده وسيلة عشان بيجا يوزن هذا الجميع يعني والله لكن وجود فلان بودون فيه خلاص هذا الوقت عيد الأول وطن يجيب سيدا أي تاجر الحي السنة كانوا الصومالية في العام كامل مقشرة الاسماء المضيئة قادنا سمكة بوشيد waxaan aanaysaa ilaa 3 mudan ra'iisul Talyaani waxa ku dhibaataysan boqolaal Soomaali ah ma laga yaabaa arrimahaas inaad kala hadasho madaxda dalka insha Allah qasabay dadka danaga dawladda amarka ka meesha tago dadka dhibaataysan meesha ay jiraan tan kala hadla dawladda ay joogaan dadkaasna laba qabtaan qasabada marmar oo sameeyay dhanka kale war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha dawladda Soomaaliya ayaa isku shaandheyn lagu sameeyay wasiir ku-xigeenno iyo wasiir dawlayaasha xukuumadda Soomaaliya iyadoo 14 wasiir dawlaya 4 wasiir ku-xigeenno lagu magacaabay halkaas Saciid Doore Bulsha TV magaalada Muqdisho kuliyada shariicada islaamka ee jaamacadda magaalada Burco ayaa xalay nadwo diiniya ka furtay masaajidka Al Rahma ee magaalada Burco waa kan mar kale iyo Maxamed British
nadwo diini oo lagu naaqishayay isla markaasna si waafi looga hadlayay haweenka iyo islaamka iyo habeenkii xalay si toos ah uga furmay masjidka weyn ee Masjid Al-Rahma ee magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco. nadwadan diiniga oo soo qaban qaabisay isla markaasna isku hawshay diyaarinteeda jaamacadda weyn ee magaalada Burco, gaar ahaan kulliyadda shariicada islaamka ayaa socon doona muddo 5 habeen ah iyadoo ay ka qayb qaadanayaan dadweynaha ku nool magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco. nadwadan ayaa muxaadarooyin waxa ka soo jeedin doona culimada miisaanka kule dalkani Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Togdheer iyo waliba abwaano si weyn looga yaqaan geeyiga Soomaaliyeed. muxaadaradan sida tooska habeenkii xalay uga bilaabatay Masjid Al-Rahma ee magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco ayaa ahayd mid ay si weyn uga soo qayb galeen culimada waaweyn ee gobolka Togdheer, iyadoo ay kamid ahaayeen culimadaasi ka soo qayb galay muxaadaradani Sheekh Beledka magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco Sheekh Cali Warsame, muftiga weyn ahna mas'uuliyiinta kulliyadda shariicada ee jaamacadda Burco Sheekh Faysal Cali Farax, gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Burco ahna kusimaha gudoomiyaha Sheekh Ismaaciil Maxamuud Ismaaciil Caraale, Sheekh Mawlid Axmed iyo waliba abwaanka weyn ee Soomaaliyeed abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi. ugu horeynba ayaa nadwadan diiniga waxa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Burco ahna kusimaha gudoomiyaha Sheekh Ismaaciil Caraale, wuxuuna faahfaahin ka bixiyay sababta keentay in kulankan muxaadarada ay u qabtaan dadweynaha ku nool magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco. wuxuuna gudoomiye ku-xigeenka ahna kusimaha gudoomiyaha jaamacadda Burco Sheekh Ismaaciil Caraale uu sheegay in jaamacadda Burco ay mar walba u heelan tahay sidii bulshada ku nool guud ahaan gobolka Togdheer ay ugu soo bandhigi lahayd waxbarasho tayo leh. wuxuuna gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Burco Sheekh Ismaaciil Caraale uu sheegay in muxaadaradan ay muddo 5 habeen ay si toos ah uga socon doonto Masjid Al-Rahma ee magaalada Burco. Sheekh Faysal Cali Farax oo isaguna halkaas muxaadaro ka soo jeediyay ayaa ammaan ballaaran u soo jeediyay maamulka iyo mas'uuliyiinta jaamacadda Burco, gaar ahaan qaybta kulliyadda oo uu sheegay inay wax weyn ka tartay sidii bulshada ku nool magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco ay uga qayb qaadan lahaayeen fidinta diinta islaamka. abwaanka weyn ee Soomaaliyeed abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi oo isaguna muxaadaradan ka hadlay ayaa sheegay in si weyn ugu mahadnaqayo maamulka sare ee jaamacadda Burco, isla markaasna waxa uu abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi maamulka iyo mas'uuliyiinta sare ee jaamacadda Burco kula dardaarmay inay halkaasi ka sii wadaan dadaalkooda. si kastaba haatee munaasabadan furitaanka oo ahayd nadwo ay soo qaban qaabisay kulliyadda shariicada islaamka ee jaamacadda Burco iyadoo lagu qabtay Masjid Al-Rahma ee magaalada Burco, waana markii u horeysay nadwo noocan oo kale lagu qabto masaajidada ku yaala magaalada madaxno. Maxamed Ibraahim Xasan, Maxamed British Television madaxa banaan ee Bulsha TV Burco. dalada dhalinyarada ee isku xidhka dhalinyarada Soomaaliland ee Soonya ayaa munaasabad ugu soo gabagabaysay munaasabad lagaga hadlayay wacyigelinta HIV/AIDS-ka. waxaa faafaynta warkaasi magaalada Burco ooga soo diray wariyahayaga Maxamed British. kale xaflad ballaaran oo lagu soo xidhayay wacyigelin ku saabsan cudurka halista HIV/AIDS oo ay soo qaban qaabisay dalada wacyigelinta ee isku xidhka dhalinyarada Soomaaliland ee Zayna oo 15 maalmood u dambeeyay ka waday gudaha magaalada Burco iyo xarunta gobolka Saraar ee magaalada Caynaba ayaa xalay lagu qabtay hoolka jaamacadda Golis ee magaalada Burco. munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka kala socotay ururada bulshada, maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe iyo sare, ardayda jaamacadaha Burco. munaasabadan ayaa ahayd mid lagu soo bandhigay qayb ka mid ah wacyigelinta HIV/AIDS-ka ee ay waday dalada Zayna. ugu horeynba waxaa munaasabadan ka hadlay gudoomiyaha guud ee dalada Zayna Mustafa Cismaan Cabdiraxmaan, wuxuuna ka warbixiyay waxyaabaha ugu waaweyn ee Zayna u asaasan tahay iyo waxqabadkeeda, isagoo dhinaca kalena xusay in barnaamijkani aanu ahayn kii ugu horeeyay ay qabtaan. munaasabadan ballaaran ee lagu soo xidhayay wacyigelinta ay dalada Zayna ka waday muddooyinka u dambeeyayba gobolka Togdheer iyo waliba gobolka Saraar ayaa dhextaal looga dhigay masraxiyad kooban iyo waliba ciyaar dhaqameed ay halkaasi ku soo bandhigeen kooxda horseed ee hidaha iyo dhaqanka oo kamid ah kooxaha iyo dhalinyarada daladani ku midoobay. Aqal Weli Cumar Maxamuud oo kamid ah madax dhaqameed gobolka Togdheer oo isaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa dalada Zayna ku dhiirigeliyay waxqabadkeeda kuna amaanay dadaalkeeda. maamulayaasha dugsiyada Sheekh Ibraahim iyo Al-Mustaqbal Boarding School ee magaalada Burco iyaguna munaasabadaasi ka hadlay ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay hadafka dalada Zayna iyo waliba sida ay u dareemeen xogo badan sida ay uga soo ururiyeen dhibaatada uu cudurkani AIDS ku leeyahay. ugu dambeyntii waxaa munaasabadan su'aalo kadis lagu weydiiyay marti sharafkii kuwaas oo cidii ku guuleysatay la siiyay abaalmarino. Maxamed Ibraahim Xasan, Maxamed British Television madaxa banaan ee Bulsha TV Burco. shirkadda diyaaradaha ee dalka Spain waxa ay joojisay duulimaadadeedii caalamiga ahaa ee iskaga gooshi jirtay caalamka. faafaynta warkaasi waxaa inoo haya Maxamed Shiciir Axmed.
shirkadda diyaaradaha Spain Air oo sikadiisa u joojisay socdaalkeedii ku wajahna daafaha caalamka iyadoo wax ogeysiis aan bixin gegada diyaaradaha ee Barcelona ayaa maanta sikadiis mar qura doolimaadkii ay joojisay shirkadda diyaaradaha Spain Air shirkadda ayaa iyadoo wax cudurdaar aan bixin waxa ay laashay 380 duulimaad taas oo una kala gooshisay dhamaadka wiigan rakaabkii diyaaradda ayaa salaadii horeba garoonka ku diyaaraha kuwaas oo tigidhadoodii sita isla markaana shantadii iyo agabkii kala watayna u dhibay shaqaale diyaaradda balse mar qura ayay waayeen xafiisyadii diyaaradaha waxaana hoosta ka xariiqeen inay dacwad ku soo oogayaan shirkadda Spain oo ay ka rabaan caymiskoodii shirkadda Spain Air ayaa cadaysay inay joojisay duulimaadkii kadib markii ay shirkadda Qatar ay diyaaraduhu ay dib ugu noqotay sheer ay ku doonaysay inay ku iibsato diyaaradda Spain Air shirkaddan ayaa waxa ku habsaday dhaqaale Senegal waxa ka dhacay rabshado lagaga soo horjeedo madaxweynaha dalkaasi. Dalka Senegal ayaa waxa ka socda rabshado ballaaran kadib markii loo ogolaaday madaxweynaha talada dalka haya Abdallah Wade inuu isu soo taago musharaxa madaxtooyada dalkaasi ee markii saddexaad. Caasimada dalka Senegal ee Dakar ayaa waxa ka socda rabshado ballaaran kuwaasi oo lagaga soo horjeedo Abdallah Wade oo loo ogolaaday inuu markii saddexaad isu soo taago jagada madaxweynaha dalka Senegal. Rabshadahan ayaa waxa wada dhalinyaro gadoodsan oo ay diidan yihiin in loo ogolaan waayay sharaxiintii ka socday xisbiga mucaaridka ee dalkaasi mucaaridka dalkaasi ayaa ugu baaqay dadweynaha reer Senegal inay isku soo bax ka bilaabaan dalkaasi iyadoo maanta dhalinyaro aad u tiro badani oo ku hubaysan xadiid ah kuwaasi oo wadooyinka caasimada ku gubayay taayiro isla markaana dhagaxaan ku shiidayay booliskaasi maxkamadda sare ee dalka Senegal ayaa u ogolaatay in uu madaxweynaha talada dalka haya Abdallah Wade uu markii saddexaad isku soo taago jaragada madaxweynenimada ee dalka Senegal taas oo dhacaysa 26 bishan February iyadoo oo hore loogu ogolaa in uu madaxweynuhu isu soo taagi karo laba jeer dawladdaas waxaa naga dhan wixii waray dalka gudihiisa iyo dibadiisa baan idinka haynay warkaca waxay la socotinaysaa anigoo hooda jirda aniga iyo intii kale igala qayb gashay warkan ku lamid intaan dib hawada ugu kulmayna waxaan dhamaantiin idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh